هلا السلام عليكم شيخو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخو سؤال عن قبا. تفضل أخي أختي. marka sheekhow ninkaygu bidaaru leeyahay mugt waa garta marka turkiga aadaya bidaartan soo beeranaya igu dhahay anna waan ka diidanahay diintu maxay ka qabtaa sheekhow waa bannaan tahay diinta waa bannaan tahay in la tinta oo tin kale lagu mudaayo laakiin daawaa lagu shubaya tintiisa soo baxaysa qofka diintu waxay diiday tin kale lagu titco lagu dheereeyo marka laakiin in wax la abuuro la soo saaro laa ba'as baa culamo badan mucaasiriina fatwootay waa bannaan tahay insha allah. اوكي جزاك الله خير. بارك الله فيكم ان شاء الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شيخ سؤال هربنا كويديو هاي شيخ هذا كورو نين walaalkee ها lacagisi lacag badan ay mar waa gartay lacagtii marka gurigan ka dhistay waa gartay kadib waqti badan kadib oo xitaa xajka xitaa waa ka tagay lacag ku jirto waa gartay waqti kadib marka ayaan wuxuu ila soo hadlay wuxuu yiri lacagtii waagi aan ku siiyay xaaraan ahayd xaaraan ku keenay wax kaaga jiro mal adig adiga asaga maadaama fiir lacagta waxay xalaal iyo xaaraan ku noqotaa dariiqatul kasbi sidaa kusoo kasbatay ma soo xaday xaaraan ma kusoo shaqaysay qamri iyo qanziir ma xaaraan ma ku ka ganacsatay ka faa'iiday waxaas ay xaaraan ku noqotaa laakiin adiga xalaal ku tahay haduu ku siiyay ka xadin ka xoogin xaaraanteeda asoo ilaahay ku xisaabtama laakiin adiga xajkaaga iyo isticmaalkaaga dhan xaq u leeyahay insha Allah. halo salaamu calaykum waa ku salaam sheekh. wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. sheekh waxaan joogaa dalka Jarmalka su'aalan rabay inaan ku weydiiyo su'aashaas oo ah waxaan ka shaqeeyaa isbitaalkaasna yacni qadada iyo quraacda iyo cashada ayaan kor saaraayo aniga ma qaybiyo laakiin waxaan dhigaa jikada hor dhigaa kadibna waa ka soo tagaa xalaas waa shaqadeeda marka dadka waxay iskugu jiraan gaal iyo muslim marka cuntadaasna waxaa ku jirta doofaar waan ogahay qadada maray soo raacdaa marna quraacday soo raacdaa cuntadan cunto xalaal way ku jirtaa marka lacagtaas aan ka shaqaysto ama aan ka shaqaystay yacni hooyaday xaj ma ka gey karaa ama ma isticmaali karaa lacagtaas sidee waa aan shaqeeyey waa ka shaqeey kartaa shaqo waa ka gey kartaa laakiin shaqadaas adiga kuma wanaagsano lacagta kasbigaaga dhididkaaga ku keenta lacagtaas midda kale cunto xalaal iyo xaaraan isku dhex jirta saa sheegta hadda oo xalaalna ku jirtaa marka lacagta xalaal way insha Allah laakiin shaqadaas oo kale ka fiirsan insha Allah inaad ka sii shaqeyso adiga kuma wanaagsan lacagtaas hadda aan ka shaqeeyay xajka ma ka gey karaa hooyaday sheekh waa ka gey kartaa ha waa maasanta insha Allah waxaan filayaa su'aashaas ay ugu dambeysay waxaan qaldan naftii shaydaanka ah hadaan saxan tawfiiq ilaahay subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.